munaasabadan ayaa ahayd mid ururka ardada reer Maakhir ee ku dhaqan wadanka Bangladesh waxna ka barta halkaasi ay ku soo bandhigayeen wajigii koowaad ee buugaag nooca cilmiga laga raacdo ah oo ay ugu deeqeen jaamacadda Maakhir oo ku taal magaalada Baran ee gobolka Sanaag. xubnaha ururka midowga ardada reer Maakhir ee ku nool wadanka Bangladesh waxna ka barta oo kala ah عثمان إبراهيم دعالة قدوميها أوركاسي مصطفى سعيد نور قدوميه كحجانكا محمود جبريل حبين محمد حسن الجامعة فيانكا أوركاسي سكرية حمود وكترسن حبنها أوركا حمزة إسماعيل ليبان ويسوقنا حبنها كترسن محمد عبد الله دورشي قدوميه هراء أوركا مدوغا أرديدا رير ماخير بنغلاديش إيا عبد الحكيم موسى حرسي وكترسن حبنها أوركاسي أياكا هدلي مناسبة سيلا قوتين يبوغ أي أوغوتلا قلين جامعة ماخر مقالة براني قبل كسناك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مقاعد وعثمان إبراهيم دعالة أهنا قدوميها أوركا دانيار ترير ماخر كردغان تلك بنغلاديش كاران عاصمة دكا. كل يوحنا حاجة كوسا بندقينا هدانو نهاي شاليدي أما أوركا ماخر كردغنا ودك بنغلاديش وحقبت كي جوهري كاسوء إنانو ودرنو فيسكي جوهري jaamacadda Maakhir ee gobolka Sanaag markaan aragnay baahida loo baahan yahay buugaagta markaan aragnay isbedelka ka socda gobolkii waxaanu jeclaysanay hadaan nahay aqoon-yahanadii gobolka inaanu anaguna kala qayb qaadano horumarka iyo waxqabadka kala qayb qaadano gobolkeega waxaanu jeclaysanay inaanu sii dhibno fiiskii ugu horeeyay aanu sii dhibno jaamacadda salaamaya dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto si gaar ah waxaan u salaamayaa bahda qalinleyda Soomaaliyeed runtii caawa waxaan isugu nimid xaflad yar oo kooban aan ku soo gootinayno buugaagtaas oo ku wajahan gobolka Sanaag gaar ahaan jaamacadda Maakhir runtii caawa waxaan soo bandhigaynaa dadaal in muddo ah soo socday ka yimid fikrad ka timid dhalinyaro aqoon-yahan ah oo ardayda wax ka barata wadanka Bangladesh gaar ahaan ardayda ururka Maakhir ee wadankan taasoo ah caawa la joogo miro dhalkeedii la joogo inaan halka direeno buug aad u tiro badan buugtaas oo ka kooban dhowr departments oo kala duwan runtii anagoo eegaynana sida ay u kala muhiimsan yihiin muhiimadda ugu weyn ee buugtan aan u dirayna ma ahan inaan leenahay waxaa jirta baahi weyn oo jaamacadii buug ka jirta laakiin waxa weeye waxaan leenahay buuggii la geeyaaba waxba soo kordhinaya waan ognahay jaamacaddu waxa haystaa lab ku filan buugaag badan laakiin anaga waxaan isweydiinay idinkana kaalintiinu maxay noqon kartaa iyadoo la dareemayna arday la iska yahay xaaladda lagu jiro waaqica la dareemi karayo haddana waxaan siniyada saa tahay ha kaga hadhinina waxaan xasuustaa anu waxaan rag baan goobjoog u ahaa markii la dhisay jaamacadda oo dhagax iyo dhoobada la lahaa salaadiina loo diri jiray marka caawan waxaan taaganahay inaan kordhino aan muujino bal maxaan ku tari karnaa maxaan sii dhiibi karnaa runtii ma aha waxaan aan wadno shaqada aan wadno shaqo aad u weyn ma aha waa dareemaynaa qiimaha iyagu iyo waxa goynteedu inay aad u yar tahay laakiin waxaanu ahayn dad vision leh oo aragti leh oo inay wax bilaabaan rabay marka tan waxay noqonaysaa barbilow bay noqonaysaa waxaan ugu talagalay inaanu ummadda tusno ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan mandaqada Sanaag inta ka soo jeeda in markasta oo ciid isu tagto walow ha ahaayeen 2 qof ama 3 qof inay wax qaban karaan waxaanu ka rajaynaynaa dhammaan ardayda reer Sanaag oo kala jooga daafaha caalamka inay si lamada iyo si ka badan inay sameyn doonaan إن شاء الله يدينكم النقطة وحي لدين سودي بكوا كوا أنفعه واحد بدنا كفائدة استهرنتي وهرن أو سيدا ولكن مصطفى وقصة هذا لي واختيار ويش دي أو حيالك قدر لسود الرجال لكن ما أنت وابوك يقلن كي بمرسى إن شاء الله حلقة صادم بأمساكم بأما ديدتك السياسيين بلايهن ضد العقلية بلايهن ضد ويارق بلايهن إن حتى معركة ضد تصالح النقطة أو أنت إنك بدن لدين سو معركة ديبو أما لدين بهالكيستو تاسو إجدو مسنا جامعة قدر ما أها جامعة ما baahi u qabta waxay arday qaaday wax kale laakiin waa waxaanu isleenahay shalay dhagaxa iyo ciid baanu saareynay maantana meeshii aan dhagaxa iyo ciid saarnay wari bedelkeedii hadii dhagax iyo ciidii lagu guuleystay wax loo baahan yahay in ma garanaysaa wixii lagu dhigan lahaana aanu inta tamartayada ah insha Allah aanu ka qayb qaadano ilaahay baa mahadle suukan keenay meesha tan mahadda ilaahay kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhalinyarada wajiyaasha quruxda badan leh ka soo qayb galay ee soo organize gareeyay arintan aanu caawa halka u joogno oo aynaanu sii dhiibno aan buugtaas aan u sii dhiibayno dalka Soomaaliya khaas ahaan Sanaag gaar ahaan magaalada Baran jaamacadda Maakhir University buugtaas oo ka kooban dhibaatooyin badan ururka Maakhir ee ka dhisan Bangladesh wax qabadkii koowaad oo mataqaana uu sii dhiibo weeye laakiin noqon maayo
waxqabadkii ugu dambeeyay noqon maayo waa fayskii koowaad waxaa jiri doonta waxyaabo badan oo kale aanu sii dhiibi karno oo aanu la wadaagi karno ummadda Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mandaqadii aan maanta wax ku soo baranay gaar ahaan anigu Xamse ah oo laygu bilaabay alif ba ta tha laygu bilaabay inaan maanta buugaag iyo aqoon inaan u sii gudbino aad iyo aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii insha Allah buugaag kaliyana ma aha inaan soo dhiibnay waxaan rajaynaynaa insha Allah anagoo maanta aqoon yahana inaan mandaqada ku soo noqono oo aan muxuu ahaa aqoontan soo baranay inaan la wadaagno bulshada guddigan soo qaban qaabiyay ururka Maakhir Student Association aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inuu inta shaqooyin ka sii badiyo haddii ahaan lahaay mataaneynta jaamacadaha dalkan iyo Maakhir iyana inay ku daraan waxqabadkooda aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya inay dalkooda wax ku celiyaan oo ay xusuustaan iyo dadkii ay ka yimaadeen iyo deegaanka ay ka yimaadeen runtii caawa halkan waxaan iga muuqata juhdi fiican waxaad geliseen inaad waxa weey lacag iska ururisaan idinku qurba jooga oo xasuutaan jaamacadiinni dadkiinni iyo dalkiinni waxa weey inii baahan yahay runtii intaa iyo ka badan ba insha Allah waan rajeenayaa inaad garab istaag aad u ahaataan jaamacadiina jaamacada cid kaliya ay sugayso waa idinka intaa iyo ka badan ba insha Allah waan bogaadinayaa inaad waxa weeyaan sameysaan waxaan u maleynayaa waa feeskiinii ugu horeeyay inuusan noqon feeskiinii ugu dambeeyay midowga ururka ardayda reer Maakhir ee ku dhaqan wadanka Bangladesh waxna ka barta halkaasi ayaa sheegay in buugaagtani ay tahay wajigii koowaad laakiin ay wadi doonaan taageerada ay la garab taagan yihiin ardayda dhigata jaamacadda Maakhir oo ku taal magaalada Baran ee gobolka Sanaag Maxamed Xasan Dhalo warbaahinta Daljir